السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارتو أنا سلامي waxaan rajeynaa inaad wacantihiin waxaan insha Allah qaadan doonaa casharadii noo socday ayaan bilaabanaa insha Allah oo ah conversationka videoga qaybta videoga aan af Soomaaliya ku dulmarin hadii la yiraahdo marka maanta mawduucan wuxuu noqonaa conversation wada sheekeysi between u dhaxeeyo parent waalid and teacher macallin marka macallin iyo sheekada waxay dhex maraysaa iyo waalid principal meesha ku qoranta principal waxa waaye hay dhamasta camal waa Soomaali waxa la maamule marka principal iskuulada secondary-ga iyo college-ka ayaa la principal iskuulada primary-ga badanaa hay dhamasta la marka saas oo insha Allah marka conversation-kan ayaa bilaaban hadii Ilaahay yiraahdo erida ayaa soo qarqaraacay come in please fadlan soo gal marka waalidkii iyo cunugiisa ayaa soo galay waxay dhahday may I introduce myself again sir iska bari karaa mudana mar labaad may I introduce myself again sir ma iska bari karaa mudana mar labaad my name is Linda Horrington magacayga waxaa la yiraahdaa Linda Horrington and this is my son kani waa cunugayga Tom Harrington ayaa la dhahaa Tom Harrington ayaa la dhahaa cunugayga we talk on the phone last week waxaan ku wada hadalnay telephone asbuuci la soo dhaafay we talk waxaan ku hadalnay on phone telephone last week asbuuci la soo dhaafay about my son school wax ku saabsan arrimaha iskuulka cunugayga transferring bedelitaanka to this prestigious high school in town prestigious waxa waaye macnaha school oo high very status la macnaha school oo laga dambeeyo oo magac la waayo maamuus la waayo marka waxay tiri to this school kan magac leh maamuus kale oo la xishmeeyay ayaan ka wada hadalnay sorry ku yaal magaalada high school in the town marka cunugeeda ayay transfer soo siinaysaa marka intaan iskuulka cunugkeena ayay maxay masaha telefoon ku soo hadlay marka hadda maanta uu imaaday oh sure ha waan xasuustaa wiilaan telefoon ku hadlay I remember you waan ku xasuustaa Mr. Linda Marwa Linda thank you for thank you ma ku mahadsantahay for choosing in dooritaanka aad dooratay our schoolkan to educate inuu wax baro such talented cunug oo talentigaas macnaha cunug oo talent waxa la qofka Ilaahay wixii hibadiisa hibada la talent such talent student like Tom oo talent leh ina anaga wax barno oo anaga noo doorato waad ku mahadsantahay wiil marka next conversation ayaa adina wuxuu yiri we do very welcome student aad ayaan ardayda u soo dhaweynaa having a lot of prizes we do very welcome waxaan aad u soo dhaweynaa student ardayda having haysato a lot of prizes hadiyadaha ama dadka inta tartanka leen waxa la siiyay biladooyinka and awards iyo biladooyinka cheese meeshan cheese like him cunug Tom camal aan kusoo dhaweynaa macnaha ardada oo hibada leh oo meelaha tartanka galeen oo haystaan biladooyinka aan soo dhaweynaa thank you ayay dhahday Mr. Clark oo ku mahadsantahay wiil mudane it's my pleasure waa farxadayda little boy macnaha wiilka ayaa yiri thank you Mr. Clark Mr. Clark aad u mahadsantahay kana wuxuu dhahay it's my pleasure macnaha aad mudan waa macnaha little boy wiilka yaraayo now where shall we begin hadda antaan ka bilownaa now we shall we begin can I have more information maxay tahay islaanta can I have mahel kara more information warbixin dheeraad ah about ku saabsan Mr. John ninka la yiraahdo Mr. John who is going to be my son's head teacher cunugaasoo noqon doono ninkaasoo ah who is going to be my son head teacher kaasoo noqon doono macnaha fasalka cunuga dhiganayo ninka gacanta ku hayo cunuga head teacher ama head class maxaa la yiraahdo ama class master nin walba u yaqaan ninkaas ma ogaan karaa wati ninkaas sawirkiisa anka xaq ka soo baxa waaye waa kana ninka galaaska cunugiisa bar John wuxuu yiri well he is going to teach math wuxuu ku bari doonaa xisaab for the class fasalka he is really reliable
waa nin macnaha reliable oo macnaha oo qolqolo ay gamis waxaas aan aqoon. Be an careful person, nin qof taxadar oo aad u taxadar waaye oo macnaha ardada gacanta ku haya waaye. Marka ninkaas ayuu uga sheekay. Tom's going to meet him. Tom's going to meet him on first lesson. Tom wuxuu ninkaas la kulmi doonaa first lesson marka casharka ugu horeeya qaadanayo next week asbuuca dambe. It's good things aad ay u fiican tahay. You know ma ogtahay in the previous schoolkii xanuunka hadda schoolkii hore macnaha schoolkii kasoo bedelaysa previous schoolkii hore the teachers macallimiinta don't even care waxba dhanka ma lahayn about cunuga whether my son is absent hadduu maqan yahay or not ama uu joogo, which makes me so irritated. taasoo aad iga xanaajisa. macnaha irritated waxaa la wax ku dheelbado oo macnaha asla cunto oo macnaha maskaxda ka galo isla raaxada ku diido waay. Which makes me so irritated. Okay, well, hagaag, you don't have to worry, ma u baahnid inaad walwasho about this tan inaad ka walwasho macnaha kama walaad. This schoolka we have strict rules, waxaan leenahay sharci adag, and all of the students ardada dhan follow them well, si fiican ayay u raacaan. macnaha wax absent iyo wax oo inaad ka walwasho meesha loogama baahno. anaga rule ayaan leenahay, ardadana way wada raacaan. ninkii raaci waayena say u taala camal. Can I ask more about the uniform? ma ku weydiin karaa wax ku saabsan uniformka, the lunch cuntada, the subject maadooyinka, and so on iyo wixii lamid ah. ama ogaan karaa bay tiri wax ku saabsan marka wuxuu dhahay well schoolka hagaag this schoolkan student can address ardayda can dress wax xiran karaan informally to go to school. macnaha schoolka ardada waxay in this school student can dress informally to go to school. uniform ayay xiranayaan informally si aan caadi to go to school insay u aadaan. however saa darteed both girls wiilasha both girls gabdhaha and boys wiilashaba are not allowed, looma ogolo to wear inay xirtaan shorts wax gaagaaban and tank tops. shorts and tank tops waxaa la waxaan feeraha dhinaca intaan ka banaan iyo buumaha yarka ayaa la yirahdaa. marka schoolka uniformkiisa waa kan bidixda xiga waayo. okay, tank tops kan ayaa tiglisay kana qalad waayo, macnaha uniformka kuwan waa uu leeyahay ardada ay xirtaan. okay, I got it, waan fahmay tiri. we have waxaa leenahay u dhahay a cafeteria meel maqaaxi with a wide range of food oo macnaha aad oo baaxad leh for lunch oo lagu qadada. the price qiimahana is not covered in the institution. the price not covered in the institution macnaha anaga macnaha fiiga lacagta cuntada laguma darin buu dhahay. lacagta cuntada lagu cunayo laguma darin buu dhahay fiiga iskuulka hadda aan ku sheegay. so saa darteed you have to pay waa inaad bixisaa $5 $5 for each set macnaha $5 inaad bixiso buu yiri setkii kasta maalintii inay tahay. okay, the price is quite affordable. price is quite affordable macnaha waa wax la awoodi karo waay. yeah ha will you like majacashay to go out inaan ku kaxeeyo banaanka to have a look saa usoo aragtid around meelaha around school dhexdiisa the infrastructure iyo dhismooyinka of the schoolka macnaha majacashaa waa inaan ku kaxeeyo schoolka dhexdiisa saan kusoo tuso. I had love it too, waan jeclaan lahaa tiri. hadda way wada aadan si loo soo wareejiyo. so tani saa darteed this is our swimming pool, tani waa meeshaan barkadana dabaasha. this subject is optional, subjectkana waxaa waaye waa iska qasab maaha waxaa waaye ama qaada ama qaadana dabaasha bar ama baran qasab ma dhahay. student can even relax way ku nastaan ardayda way ku nastaan without paying charge ayagoo waxba bixin after school. markii iskuulka soo dareero ayay iskaga nastaan ayagoo waxba lacag bixin or practice ama way ku practice gareen macnaha way isku tijaabiyaan for the regional competition. markii la aadayo regional competition goboleys ciyaar competition tartan ayaa goboleys tartan marka la aadayo oo xagga dabaasha ayaa ardayda inta isku tijaabiyaan waay.
This is the library. Tani waa meesha library bookta lagu akhrisanayo. With over 3000 useful textbooks. 3,000 wax ka badan oo buugaag fiican la isticmaalo ayaa ku dhex jirta. And learning materials iyo waxyaalaha wax laga barto qoraalka. Learning materials. Wow, so large. Aad ayay u weyn tahay. This is the gymnasium. Meeshan waa meesha jimicsiga. With several fitness waxyaalo badan oo equipment ayaa lagu jimicsado. Qalab equipment waa qalab. It also has changing room inside. Meel lagu bedesho qol marka lagu bedeshana gudaha ayuu ku qabaa. Okay. We are at the second floor. Hadda waxaan joognaa qaybta labaad. Second floor. Iskuulka qayb dabaqa labaad. The school with a lot of classes. Meeshan galaasyo badan ayaana ku yaalo. On the third floor, qaybta saddexaad, there were various club rooms. Maxaa ku yaala club room fara badan macnaha waa kana religion club, anatomy club, secretary room, clubyaal badan waxaa la kooxda iskuulka dhex samaysan. Wuxuu yiri various club rooms for practicing and discussing ideas. Maxana waxay ka wada hadlaan fikradooyinkooda iyo practicing sidoo kale waxay ku bartaan xagga maamulada iyo waxyaalahan ay ku practice garayaan. We have just to walk around the school. How do you feel, Tom? waxaan ku soo wareegnay iskuulka. Tom, sida u aragtaa? I feel so excited. I feel so excited. Aad ayaan waxaan dareemay xiiso. Sorry. I feel so excited. Waxaan dareemay xiiso to start inaan bilowdo schoolka next week asbuuca soo socdo. Before starting next week, please come to the secretary room on the first floor to register the subjects you want to learn. Before starting intaada bilaabo next week asbuuca soo socda, please fadlan come email to the secretary room xafiiska secretary-ga islaanta oo secretary-ga la dhaho. On the first floor oo ku yaala qaybta saddexaad, qaybta ugu horeysa first floor hoose, to register si ay ku diiwaan geliso the subjects maadooyinka you want to learn arabtid inaad barato. We really appreciate the time you've spent with us, Mr. Clark. We really appreciate mahadnaq aad we really appreciate aad ayaan run ahaan ayaan kaaga mahad celinayaa the time waqtiga you have spent with us anaga nala qaadatay Mr. Clark. Asxaabay qaybta koowaad ee conversationka macallinkii iyo waalidkii inta ayaan kusoo gabagabeynayna insha Allah. Qaybta labaad ayaan inkaga dhigi doonaa si uuna video inkugu dheeraanin. Marka aad ayaan salaamay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. hana iloobina macalinka channelkiisa xoogaa usulka ka iloobin dhacdhac ku siiya insha Allah. aad ayaan iyadan salaamay asxaabta.